مسجد جامع نصر الدين حافظ دامي مقالة هرقيسة وحكا فرانتين ندوة محاضرة وأي كقيب جليان قار كمد علماء الدلكة يحمنا كالي ندوة أولوغو مقعدري دينتين هو بدبادة الدنيا آخره وحانا عاو مرتكو شيخ اسماعيل عبدي هوري وكو مقعدير شيخ اسماعيل ديقي وحكا سو قيب جلي وزير كحيينك وزارة عدالة مهد عثمان بوري قدوميها قدد ونك فريستي حمار ريبست قبل كمرود شيخ اسماعيل عيد عبد الرحمن وقهرين الكاسي وحكا هذا لي إمامك مسجد جامع نصر الدين شيخ محمد أحمد آدن يحمله كالدونا إيكسو قيب قلي بإذن الله تعالى عاو خميسة تاريخ ذنه هجري تهاي صدحية توانكي بشي كواد محرم كن أفر بقرأ فريا فرتنكا وافقسن كوب يطبنكي بشي سديداد ربط كوني ربيع رواتنكا وحمساجد كينان مختين الله شيخ اسماعيل عبدي هوره وكم مقعدير شيخ اسماعيل ديك إلهي سبحانه وتعالى وحين قبرين الشيخة وقتها قيمها بدنا ونوصه هوري كلمة دا قيمها بدنا إن إلهي ميسانك حسنات كوصاره sidoo kale waxa halkan jooga oo inoo duubaya TV-gi saab oo Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaray isaguna yiri firi baan ku sii deynayna 7 cisho marka waxa maxaadarooyinku socdaan muraad beelayeen muraadkooda bila macsiya Allah subhanahu wa ta'ala siiyo sidoo kale waxa u ducaynaynaa gudida wanaag farista oo qayb ka ah marka maxaadarooyinkan إلهي سبحانه وتعالى إن قد يكوي وعد يوانا يوم موعدة الرسول تشيدين وحقوقاته علماءنا إلهي ميسانك حسنات كاوصارا إلهي سبحانه وتعالى خاتم دينوها قاتيو شيخنا ودعين إنا إلهي دنبقي صارا فشيخ أيان كسور دوين يا فرحات بيتهاي هي فرصة وين إن عاو هلكن كلا سوقيب قالوا برنامج كان قيمها بدن أهل كمساجد كنصر الدين أي عاو هل كان كبلا بيان موضوع لا يقعد صدي إنا وحكيرا وحوي التمسك بالإسلام فلاح والنجاة إن إسلام كأد قبضتها والليباني بدبادو ولا ليال إسلام كأول قاته أول بدقمه وحلقوا جارا ليبان الدويو هي الليبان آخره لبضبا تاسنا واللبان آد وين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وحي إسلام نمدو وحي كدقيسا إن نلش خسارة كل ما يسطو قال الله تعالى إلهي وحي سورة الأعراف الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون كوي دين تودي دير عيار كدغتي كوي عيار لنقطي اسكا سو عياري ادويدي ككدسومي إلهي وحوليه فاليوم ننساهم ما أنت وان كتجنا أريد هذا حالين من نبي الله سبحانه وتعالى واحد حنش حول الله يا ما أنت ما جرته أريد هذا وهكو دايو سيدي مالين تن شقد ذو اللوبين أينا ما أنت اللوبية إلهي وكبر ينا أنا إنك نجين كو آخر اللوبي دونه waxaan ka baryaynaa inuu inaga yeero kuwa loo abaal gudi doono walaalayaal maanta waan noolahay wali fursada waan haynaa yar waaweynba fursadaas inaan ka faa'iideyno
aynaan nolosha khasaarin wadaalika huwa alkhusraanu almubiin adigoo noloshii khasaariya oo aakhiro farta dhexda ka qaniina ayaa khasaaraha ugu weyn culummada dhalinyarada imaamka dadkiina qiimaha iyo qaayaha iyo sharafta badan ee madashan khayriga iskugu yimi waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn bay noo tahay inaannu idinkala soo qayb galno madashan sheekhuna aada iyo aad xag kastaba markaynu eegno aada iyo aad buu inoo waaniyey culummadu dadka waxay daba wadaan jalku waxa weeyaan ruuxa markay waxba ka degi waayaan waa wax lagu qulaamiyo waxa weeyaan dadkeenna madaxoodu waa adagyi kolkaa nasiib baynu u yeelanaynaa inaynu helo sheekh intuu ina dhex yimaado muxuu ahay nawcadiya sheekhu ilaa maalintii isku ciyaal baanu ahayn inkastoo dee mooyihiin sidaynu u kala weynayna laakiin ilaa maalintaan arkayey dee ummaduunbuu waaninayey ummaduunbuu waxu sheegayey waxa uu fadhiisan waaye uu la qaylinayaayo dee uu dee maxay ahayd waa ammaano loo dhiibay leanno culummadu waxay matalaan dee ambiyadii inama alculamaa warasat alambiyaa ambiyadii de waxay ka dhaxleen xoolo ma aha ee de waa diintaa fidinteedii diinta fidinteeduna de weli ma joogsan waxaa la yidhi waxaa jira waliyullah iyo weliya shaydaan waxlaali waxaa kaahini inaad arkaysa dee falalka iyo wax dee muxuu ahaa adeegsanaya jinka waa weliya shaydaan waliyullahna dee waa nimankaa jalkayna daba wada oo iyaga laftigooduna dee mucjisay leeyihiinoo si dee aanay dadku ugu sirmin ninkan dee markiiba jarmali ka keenayaa adigoo fadhiya maxay ahayd dawada si aanay taasi u dhicin ayaa iyagana ilaahay mucjiso u sameeyey waxa weeyaan maxay ahayd culimmadeennu waxay inoo sheegaan waa sax nin culumaa oo marganaya arki maysid waayo wuxuu ka hadlayaa waa wax saxa waa wax cadaalada waa waxaan lagu murmayn hadal kastoo kasta waynu ku murmaynaa imika sharci baa yaalla aynu dhiganay dee waynagaa ku murmaynaa foodaysta reys ku haysana bal haddee intaa imika sheekhu marinayey waxaan ka leeyahay kelmaddaa sheekha kelmaddaa weligiin ma maqlaysaan waana aftahan miidhan oo waxay aftahan ku yihiin dee waxay ka sheekaynayaan ayaa xaqa wuxuuna markay xaq yihiin dee ma soo oodmaan bal haddee waxa weeyaan dadku 8 saacadood bay shaqeeyaanoo dee way rawaxaan ayagu ma rawaxaan waadiga arkay 3 habeenimo qaylinayaa uu nagu yeedhaya wanaag intaaba masaajidku dhex taagay wuxuun buu inoo sheegaya ka shaaric mari wuxuu sheegaya bal haddee kulka waxa weeyaan ilaahay bay nagu galadaystay dee culimmadeena inay dhex fadhiyaan oo waxay noo sheegaan waa nimco inagu galadaysto dadka aynu dheerahay bal haddee kolkaa horta marka hore sheekha iyo culimmadeenna oo dhami waxay naga mudan yihiin karaamo waxay noo sheegayaan hadda waa inaynu qaadanaa waa wax danteennaa waa waxaan lagu murmin wixii kaloo dhan waynu ku murmaynaa laakiin diinta kuma murmayno kolkaa waxa weeyaan ilaahay baa mahadle ilaaha halkan inagu soo ururiyey baa mahadle ilaahay boggeena burcad ha isku mari ilaahay wanaaggeena ha istuso ilaahay xumaanteenna ha kala qariyo ilaahay wadaadadeenna jalkayna daba wadana ilaahay cimrigooda ha dheereeyo ilaahay ceebtooda ha asturo ilaahay jannada hayna geeyo ilaahay wadaadada yaree fariidada ay noo kacayna ilaahay kuwii maqla allah haynaga dhigo ilaahay kuwii maqla allah haynaga dhigo ilaahay waddankeena haynoo barakeeyo allah hayna soo waraabiyo wasiirka waanuyna siiyey waayeelnimo oo xeel dheer iyadana handhuganoo dardaarankaa waayeelnimo ee turaaluhu ku jiro insha allahu tacaala iyadan han weelayno oo sideeda hanu qaadano biidni illaahi tacaala waxaan ku soo koobayaa barnaamijkeennan muxaadaraadka ah ee diiniga ee caawa inoo bilaabmay
mudday noo socon doonaan insha allahu tacaala ciwaanka halkan inoogu qorani waxa weeyaan diinteennu waa badbaadadeenna adduun iyo aakhiraba diinteennu waa badbaadadeenna adduun iyo aakhiraba waxa uu dardaarankeenu yahay walaalayaal diinteenna han ogaano sheekha aad inooga hadlayo waxaa ka mid a adiladii uu sheekhu soo qaatay in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin kitaabkan qur-aanka ah ilaahay dad buu ku sharfayaa oo kor ugu qaadayaa kuway la kor ugu qaada allah inaga dhigo inana inaan kitaabkeenna iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam aan ku dul soconno ku sugnaano qof ahaan iyo qoys ahaan iyo qaran ahaan baan ku dadaalo intaasaa inagu filan adigoo qofa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala isku miisaan halkaad ka taagan tahay deedna dadaal inaad ku sugnaato inagoo qoysa han ku sugnaano inagoo qaranana han ku sugnaano taasaa inagu filan waxaa insha allahu tacaala muxaadaradkan way noo socon doonaan caawa waa bilow sheekhaa inoo furay biidni illaahi tacaala wasiirka iyo madaxda kale inala joogtana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadweynaha sharafta leh iyo culimada iyo odayaasha iyo dhallinyartuba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ballankeennu waxa weeye muddada ay noo socdo muxaadaraadku culimadeenna waaweyn baynu ku soo marti qaadnay ee waddanka markaa waxay tahay inaynu ka faa'iidaysanno nabadgelyadeenna aynu ilaashanno diinteennana aynu ilaashanno anshaxeenna wanaagsanna aynu ilaashanno saasaan horumar adduunyo iyo mid aakhiraba aan ku gaadhnaa biidnillahi tacaala aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu